noloshu mar walba ma aha iftiin iyo farxad. Mararka qaar waxay noqotaa safar uu qofku kaligiis ku socdo, qalbigiisana uu ka buuxo dareen culus oo aan hadal lagu cabiri karin. Dareenkaas waxaa la yiraahdaa murugo. Murugadu ma aha daciifnimo, ma aha calaamad muujinaysa in qofku jaban yahay. Waa dareen bini'aadanimo oo ka dhasha marka qalbigu la kulmo lumis, jab, niyad jab ama rajo burbur. Qof kasta, taajir, faqiir, weyn iyo yar, uu la kulmaa murugo mar uu noloshiisa. Laakiin dhibaatadu waxay bilaabataa marka murugadu noqoto mid si joogto ah qofka ugu soo laalaabato, qalbigana ku noqota deganaansho la'aan joogto ah. Mararka qaar murugadu si tartiib ah ayay u timaadaa sida daruur cirka si aamusnaan ah u qarinaysa. Qofku wuu qosli karaa, wuu ka sheekayn karaa dadka, wuu la sheekaysan karaa dadka, laakiin gudaha qalbigiisa waxaa ka jira dagaal uusan cidna la wadaagin. Murugo la qariyay waxay noqotaa culays ka weyn in la hadlo. Waxay saamaysaa sida qofku u fikiro, sida uu u dareemo wax, iyo sida uu ula macaamilo nolosha. Dadka qaar waxay u qaataan murugada wax yar oo iska baaba'aya, laakiin mararka qaar waxay isku beddeshaa xaalad nafsiyadeed oo qoto dheer oo maskaxda wax u dhimaysa amba jirka iyo nolosha guud ahaanba. Murugadu waxay awood u leedahay inay qofka ka qaado firfircoonidii, rajadii, xiisihii nolol maalmeedka. Waxay qofka ka dhigi kartaa mid daalan isagoo wax shaqo aan qabin. Laakiin fahamka murugadu waa tallaabada ugu horreysa ee lagu xakameeyo. Marka aynu ogaano sida murugadu u shaqayso iyo dhibaatooyinka ay keeni karto, waxaynu awood u yeelanaynaa inaan ka hor tagno inay nolosheena maamusho. Muuqaalkeenana caawa waxaynu ku falanqayn doonaa dhibaatooyinka iyo saamaynta ay murugadu ku leedahay qofka bini'aadanka ah. Ugu horreyn, saamaynta ugu weyn waxay ku leedahay maskaxda. Saamaynta ay maskaxda ku leedahay waxay maskaxda ku keentaa fikir badan iyo walwal joogto ah, diirad saaridda oo yaraata, xusuusta oo daciifta, go'aan qaadasho adag, niyad jab iyo rajo beel. Murugo joogto ahi waxay qofka ka dhigi kartaa mid dareemaya in wax walba ay ku culus yihiin oo aanu qaban karin. Saamaynta labaad waxay ku saamaysaa jidhka ama buriga. Jidhka waxay u geysataa hurdo la'aan amba hurdo badan oo xad ka dhaaftay, madax xanuun iyo daal joogto ah, cunto xumo amba cunto cunid aad u xad dhaafa, wadno garaaca degdega, difaaca jidhka hoos u dhaca. Maskaxda iyo jidhku way isku xidhan yihiin. Murugadu jidhka way dhaawici kartaa sida ay u dhaawacday maskaxda oo kale. Saamaynta saddexaad waxay ku yeelataa bulshada. Ka fogaanshaha dadka. Qofku marka uu murugo aad u daran la kulmo, waxa ay saamaysaa la macaamilkiisa bulshada. Wuxuu ka fogaadaa dadka, qoyska iyo xiriirka saaxiibtinimada dadka kala dhexeeya ayaa xumaada. Kelinimo ayuu qofku ku noolaadaa. Xanaaq degdeg ayaa qofka ku dhaca. Qof murugo ku jirayay mararka qaar ma jecla inuu la hadlo cidna, ifan kuwa jecel xataa. Saamaynta kale waxay ku yeeshaa shaqada iyo waxbarashada. Waxqabadkiisa qofka ayaa hoos u dhaca, dhiirigelin la'aan ayaa ku dhacda, shaqo joojin ayaa ku dhacda, waxbarashadii dib ayuu ka dhacaa, oo maskaxdii wax baran lahayd waxay ku mashquulsan tahay la dagaalanka murugada ay ku jirto. Khaladaad fara badan iyo walwal iyo cabsi oo keeni kara in qofku waxbarashadiisa uu hoos uga dhaco. Murugo joogto ah waxay joojisaa horumarka waxbarashada qofka. Qodobka shanaad ee u dambeeya murugadu marmar waxay noqon kartaa khatar noloshaada. Haddii murugadu sii socoto muddo dheer, waxay isku beddeli kartaa niyad jab aad u daran, taas oo keeni karta nolosha oo dhan oo macno la'aan loo arko, rajada dhammaanteed oo kaa lunta, qofku inuu ka fikiro inuu isdhaawaco amba isdilo. Marka qofka fikirka iyo walwalku iyo murugadu aad ugu farbadato, heer waxa uu gaari karaa oo dhimashada ka doorbido inuu noolaado. Halkaas waa meel u baahan in qofka si degdeg loo gaaro. Laakiin xusuusnow, murugadu waa dareen bini'aadanimo. Qof walba nool ilaa ambiyadii ayaa murugoon jiray. Ma aha ceeb, laakiin haddii ay noqoto mid nolosha kaa joojisa, waa muhiim inaad la hadasho qof aad ku kalsoon tahay, aad la tashato oo talo weydiiso, bixiso waxa qalbiga ku jira intii aad qarin lahayd.
nasasho iyo hurdo hagaajin aad samayso, raadiso caawimaad xirfad leh ama dhakhtar la taliya, kuna dadaasho qodobka ugu horeeya ugu muhiimsan waxa weeye inaad qur'aanka akhrisato, ilaahayna isku xidho. ugu dambeyntii, murugadu haddii ay qofka aad u farabadato, qofka gabi ahaantii way burburisaa, laakiin xal way leedahay. xalkeega ugu fiicanna waa ilaahay oo la xidhiidho. intaan mawduuca mid lamida ku kulmi doono, nabad iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.